gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali oo tixgelinayo codsi kaga yimid dadka barakacayaasha ee degan xerada Wardheer ayaa maanta booqasho ku tagay wuxuuna u guurgalay xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin dadka degan xerada Wardheer. Gudoomiyaha ayaana ka xog wareystay dadka barakacayaasha waxayna kaga warbixiyeen xaalad nolol xumo aad u liidata oo soo food saartay. Ugu horeyntii dadka barakacayaasha oo ka soo barakacay deegaanada ismaamulka Soomaalida dalka Itoobiya ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladooda nololeed waxayna codsadeen in gargaar loola soo gaaro maadaama ay yihiin dad barakacayaal ah oo aan weli sal dhiganin. Wardheer anagoo 7 bilood degan waxaan ka soo hayaanay Itoobiya waxaan ka soo dib aaga soo dhacnay gobolka Gaalkacyo aan dib aaga soo baxnay 7 bilood aan deganahay kaamka Wardheer. waxaan u baahanahay in biyo iyo musqulo naloo dhiso biyo aan rabnaa musqulaan rabnaa baciyaan rabnaa hoyina u baahanahay sideeda banaanbo waxaan rabnaa in si dhaqso leh walaalahayna in gargaar nagu soo siiyaan u baahanahay xagga Itoobiya ayaan ka nimid barahayaal baan ahayn maxaan idin ku cusayna haajiyaha sharafta leh inay naga soo garsiyaan raashin aan cunno baciyo alaab si dhaqso leh noo keeno ayaan idin ka cusayna annaga beerihin lehen waa naga go'een biyo baa naga qaaday gaajo ya gaajo heer maxaa la gaari la cuno allanka qoyan caleentiisa aan la cuno ay heer la gaaray oo biyaha lagu sii kabado Itoobiya waxaan u baahanahay taakulan xoog leh waxaan u baahanahay hayin biyo iskuulo wax walba u baahanahay musqulo bacyo raashin lacag wax walba u baahanahay haddaan cusubnahay haddaan Sheekh Xuseen noo yimid hadduu na soo booqtay waa mahadsan yahay 100% waxaan u baahanahay taakulan xoog leh kan 7 bilood uu wax uu yahay macawlaan gargaarlaan musqulaan dhahelaan dhantalaan haddana waxa loo baahan yahay sida ummadda hay'adaha samafalka waxaan ka codsaneynaa sida wax si degdeg si inuu soo gaarsiin karaan inuu soo gaarsiiyeen ummadda waxaan ka codsaneynaa gargaarka meel walbo waxaan ka codsaneynaa si dhaqsiman leh in maawada inuu soo gaaro Itoobiya oo qallaafa la yiraahdo ka timid oo ka soo barakacday waxaan u baahanahay hadii alla yiraaho inaa nolol taaguleeyo oo hadii Ilaahay ku diidin musqulo nolol dhiso biyo nolol keeno raashin aad ahaan ugu baahanahay hadii Ilaahay ku diidin walaalahayna haddana soo booqdo oo walaalkayna haddana soo booqday 100% waa mahadsan yahay. Ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan ayaa ka warbixiyay ulajeedka maanta uu ku tagay xerada Wardheer ee ku taala xaafadda Hulwadaag. dadkiina hadda mustaxiil iyo khalaaf iyo dhulkaas ka soo barakacay iyo gaalkacay sida hadda noo sheegteen insha Allah xaaladiina anaga markii hore ma ogeyn laakiin haddaan nimid haddaan ogaanay haddaan aragnay ujeedada uu nimid waxay inaan idin aragno xaaladiina aan aragno sidaas ku nooshiin aan aragno waxa noo muuqato meesha hooy ma ka muuqdo hooy lama haayo meel roob laga gala ama dhaxanta laga gala ka muuqato meesha masquulo ma laha biyaha sheegin raashin ha sheegin maacuna sheegin waxa idin soo gaaray malaha saada aad ii sheegteen insha Allah fariintan direen waxay tahay aan gaarsiinayna hay'adaha samafalka hadii la yiraahdo gobolka Hiiraan gaaraan kuwa ka howlgala magaalada madaxda beledweyne hadii ay maqlaan ama arkaan ama warkayna ay maqlaan qoraal ahaan waa u gaarsiin doonaa insha Allah social media uu gaarsiin doonaa in ladii soo gurmadaan xoogga saarayna ladii yimaado hooygaan qaab daradan ah u yaalana ladii ka bedelo oo hooy ama meel fiican oo bac oo la gali kara ladii ka dhigo biyo inaad heshaan biyaha waa nolosha qayb kamid ah waayo raashin inaad heshaan maacun inaad heshaan caafimaadka inaad heshaan waxaas oo dhan insha Allah maanta wixii ka bilowdo ayaan albaab gargarac galeynaa dadaal badan waa ku bixinaynaa runtii maxaa yeelay waa sidaan hor u sheegay waayo عبد النور عثمان هذا عريس ودن راديو ان تي في بلدوينه.